kaatu daawadayaal ma dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena Saraaca Soomaaliga oo alaaba ka barateen imika inta muddada ah labadii bilood ugu dambeeyay ama bilii barkii ugu dambeeyay shaashadeenan caalamiga ah Kalsan TV ayaa waxaan idinku soo jeedinaa barnaamijkoona gaar ah xagga farsamada awgeeda oo aan magaranaysa ku yara mashquulsanayn awgeed ayaa waxaanu baldadajinaynaa barnaamijkeena inagoo aan araar fara badan yeelanaynin waxa aynu barnaamijkeena qaybta kood bal ku soo galeynaa hadda Soomaaligaana waxaynu ku soo gali doonaa bal hadda dhaqankeeni ilaa dhaqankeeni ummadii horta waxa ay tanaadaa markay dhaqankeeda haysato dhaqankeeduna waa caqiidada islaamka wixii kale soo raacay wanaagsan diinta khilaafayna waa dhaqankeena wixii aan hayna ma aha laysamina waxyaabaha ugu cajaa'ibsan waxa kamid ah ummaddu marka ay ka tagto waxa ay leedahay dhibaato waxa weeyaan waxa meel bay ka dhacdaa jar bay ka dhacdaa waxaanu magan ka nahay aanu ka nahay ama aanu dadka u sheegaynaa barnaamijkeena Saraaca Soomaaliga shakhsi ma eriyado shakhsina ma abaaro ceeb caleeg kaliya waxa uu leeyahay barnaamijka Saraaca Soomaaliga war afkeeniina aynu dib ugu noqono caqiidadeena islaamkii dhaqankeena wanaagsan aynu dib ugu noqono inta ninkay ugu digideen hadhowta telefoonka soo diro hay yiraahdo waa qalad labadaasi aniguna waa labadaa waxaan meeshan ka wadnaa hadaan nahay bahday Saraaca Soomaaliga ee Kalsan TV wax kale shakhsi uma jeedno جروب ما تشدنا خير ما تشدنا قبيل ما تشدنا والله بيننا قلت كلية وردقن كنا هاي نستثنوا وحي ونعكسنا الصومالي جينا وطا الصومالي سياسة كوة كلا عرتي خير هبلية وحاسقة كان ما أيكو كلا تجين وركنا عينو حري وركنا الله ينقول يقالنا وردين إسلام كدد بدن بينو لو داقنا إسلامه ورقارات أفريقيا ودم بدن بينو لو داقنا Soomaaliga wadaagta iyo dhaqankii war labada ma adkaysana war labada yeeyna ku kala tagin anigu intaan leeyahay inta hadii la igu haysto hal ay sheegay doon iska deeyni inta wixii ka dambeeya ayaa waxa cajaa'ib ku yahay bal marka aynu imika eegno deegaanka iyo dadkeenii hore sida ula falgaleen koonfal laga siiyo YouTube laga siiyo brown bread waxbay dadkii barteen diishas aynaan garanaynin oo la yiraahdo baryaani iyo chicken iyo xisaabaad wax aynaan aqoonin bay dadkeena imika waxa ay haystaan qurux inay tahay waxaad arkaysaa supermarketada markaad gasho wax lagu oranay organic food organic vegetable organic magacan organic goormay magacan organic ah wuxuu markii beertii plantation kii markii la bacrimiyay laakiin rimay jamceed lagu wada daray rimay jamceedku wuxuu ahaa loo laakiin bacrimintii la bacriminayay markii tiknoolajiyadii lagu daray ayay waxay noqdeen wax la yiraahdo GM food genetic modified food wax la yiraahdo ama la isku dardaray oo la sameeyay oo artificial ka buuxaan waxa markii gacanta lagu sameeyay wixii soo baxay ee iyaga caadi ugu baxayay wax la organic inana wixii waa wada organic food markaasoo wixii ay ka carareen ee ay ku tuseen ay ku dhahdeen waa genetic modified food bal inaynu aqal xunnahay baynu intaynu keenni ka tagnay wada xarkaysa imika hargeysay burco ku falagas lagu quraacanayo iyo xamar iyo boosaaso iyo Djibouti iyo jigjigayo konfalagas war maxaa adeer konfalagas kan war maxaa lacagta qalaad sareenkii wadankaaga ka baxay baa lagugu soo sameeyay oo adeer sareenkii baad haysataa la xooxdi meeqi wanaagsan muufadi meeqi imisa nooc baad u dubi karaysaa masad konfalagas iyo caano kula carmatay caanihii waa maxay waa caana boor daasadii Yurub lagu macabo iga walan Holland lagu cabino Holland inaad shalfisada tukaamadaba ku arkaynin baan ku dhicaananido laakiin daadiga ka iibinayaan war waxaan laga iibiyay bilaa ku doofaarku ku jiraan moor mad u haysan you don't know imisa artificial markaasay kaamay qarina waxay kuugu soo qoreen ingredient-kii ku jiray daasada isaga organiga ay sheegayaan ee ay qaali gareeyeen oo aad haysatana waad ka tagtay damiirka isiyay waxay ka cararayeen xumaantiisa iyo soo malaheenana iyagu cunina inaan anigu iibsado cuno wixii wanaagsanaa ee aanay haysanaan haystayna aanan ka tago dadkeenii hore markii noloshu adkayd geedka galoolka lagu yiraahdo imika waxa jiray waxyaabaha ay cunu jireen oo ah waxyaabaha aanay ku wali haysan laakiin intay soo iibsadeen dawooyinka ay ka sameeyeen dawooyinka ee lagu daweeyo ee adoo imika wadankii joogo oranayso ninka Yurub ha loola cararo
yurub waxay kugu daweysaa waxa ku ag yaalla oo aanad garanayn yurub waxay dawooyinkeeda ku daweysaa oo waliba wax ku qalada oo waliba deelay waxaad iska tahay ninka adigu caynka ay day kugu baranayaan oo ay dawooyinka ka sameeyaan kan waxaan ku ag yaalla aad garanaysid ka soo cararayso waxaan la isku cadeeyay dhiirka hablihii ka wada dhilay ee bisaastii aydu ay hablaha u daba cararaysaa wax kale maaha wixii original ba ku ag yaalla laakiin waxa sukuuma cadeey Yurub laga keenay ba adiga ku cad imikana maxaad cuntaa capsule butter lagu soo shubay ayay Soomaalidu naadiga markay ku arkeen ka iibiyeen masaliqaysa lagu leeyahay hebel wadnaha istaagay wali maxay loo diiday inuu wixii barano raggii hore cad iyo caanay cunu jireen bariis mayna lahayn haruur baynu lahayn wayna beeri jirin bariis haruur iyo galley baynu lahayn masagaynu lahayn wax fara badan baynu lahayn oo la cuni jiray oo la tumi jiray oo la xoox laga sameyn jiray baad u fiirso kidaar baad cuni jirtay muufaad cuni jirtay waa nature waa organic lagu sheegay oo fresh neefkii saaka lugeynay baad saacad kadib beerkiisa cunaysa halkana 3 bilood wuxuu ku soo jirayaa badda oo talaagad buu ku soo jiraa 3 biloodna talaagad bilna adigu talaagad kugu jiraya neef sanad iska noqday rabad ayaan halkan ku hiigna adna neefkiisa saaka lugeynay markaasad gelinka dambe 6 saacadood kadibna oranaysa fresh ma naga dawa baarix ya وما بنعمة ربك فحدث ورمي نكوفا أنه نمعوين كل هاي نسيه محين وقع عررنا بين كل شكر نغنى الحمد لله رب العالمين يا إلهي إن أرساقي إن النمعي إيه مسلم كان جاي يروى كوجم حد ما إنه نراهن أو إنه معدن إلهي كل شكر نغنى هوبت يد فرورتي شنت وح أما شنت جيد إيه عند الدحوق ونعكسنا اللي عني شري وح كم إذا هوبت إلا إمك يوروب ميل يكبح ذي ما شرته إذا أسكاس يكبح ذا ميل كلا أدونك هوب إنكم أي ناس عارين تاينو وريجيني قلت له محل وقارك واي هوب ميل أي هوب يكبح ذان أجا أهيني ما شرته أدونك أنت وريجاي مقال كيج أنا ما هي ده هدي أي ميل كلا كبح ذا ونقرن إنه عليه هذا كي قرن يوينو شيء تلفون كده إنه يسوي شيء لكن ما هيو دفرورنا أدونك ميل كلا كم أنا رك Soomaali yani u dhamayn hoobto Soomaaliya inta deegaanka Soomaali baan hoobtii dafruutu ay meel gaar ah ka baxda adduunka Ilaahay halkaas bay ka baxda sidooda loo culi jiray iyaga waxa jiray bahal la yiraahdo goosayga isagana ama waa la kariya ama sidiisa loo cunaa waa cuntooyinka la cuno nutrition iyo vitamin iyo dheregba ku ah hadaad iska badisay dawaa mashaakilkooda caloosha ama hoobta ku istaagayso saxaraba ma saxaroon kartid hadaad de suxun u cunto oo hadaad marka hore dehydrated iska ahay garaska jiray oo isagana dareygana lagu cuno kariskana lagu cuno waxa ajaayib ku yeelay dareey la yiraahdo xasuusi maal dhaweed baan nimanba waxay yiraahdeen af Soomaaliga bal waxaad ka soo qaadaa waxaasi waa fresh de waa daray meel kale war ereygan garan maayo idhahay oran af Soomaaligu ma lahad fresh anigu garan maayo de wax wal oo daray hadaad maqasho daray waa fresh waa markaas laga soo qaaday la soo jaray ereyga fresh la yiraahdo af Soomaali waa daray inaynu baranaaba fiican inaynu barano geedka gobka la yiraahdo jira oo afraad oo isna sidiisa lagu cuno geedkani muxuu ku sii cajaybsan yahay socdaal markaad galeysaan haraada hadaad left mireed ama left gob halka daanka geliso stimulation ka u daankaaga iyo dheecanadaas ay sameynayaan haraad kuma qabanayo candhuuf buu ku siinaya aad liqdo oo jidiinka ku qalasho ku qooya intuu ka ilaa bariiska la cunaya lagu diraa ilaa dawooyinka wajiga dumarku ay iska mariyaan isku nadiifiyaan ilaa ay ma garanaysaa moisturize-kiibu waa gobka laga sameeyaa geedka ugu manaafadka badan la Soomaali waa galoolku mar waa dawo oo jiridiisa intaad soo goysaabad biyaha ku ridanaysaa asal baa la yiraahdaa daacuunkii calool xanuunkii calool qusquskii iyo yebiskii iyo wixii oo dhanbu ka daweeya marna dhuxushiishaad sidanaysaa dambaskii weeska ahaa baad soo qaadaysaa ninkii gaasriga qabay baa cunaya waa dambaskii galoolka
ayaad carabka gelinaysaa nin gaastiri soo maray un baa dee garanaya gaastiri misuu kaa dejinaya dawadan gaastirigu dambaskaa galoolka dhadhantaa bimacna alkalma hadda waa ilaa kii markii aad shiday ee aad gubtay dambaskii weeska ahaabaa dawo kuu noqday mar maydhaxdiiyo kabadiibuu kuu samaynaya marna xariggii aad wax ku xidhanaysay ee aad ku adeegsanaysay baad maydhaxdiisii kaga soo haysaa ee ilaa dawliskii ceelka aad ka soo shubaysay marna oodiisii baad aqalka ku oodeysaa ku dhisanaysaa marna mankiisii baad cunaysaa maxaa kale Soomaalidu cuni jiray yicibta sabkaxda cambuusha waa waxyaabaha nature-ka ah geedkan galoolka lagu yiraahdo meel kale kumaan arag mala Australia lagu sheegaa laakiin anigu kumaan arag maqalkayna ma hayo waxyaabahan aan idiin soo sheego dhimo waxa kale aynu adduunka dheernahay waa wax intaa Soomaali maaha wax la beero xeerka la yiraahdo xeer isaaq xeerka reesh isaaq la yiraahdo xeerkiisa waxa ugu horeeyay inaan intan geel ee imika aan sheegay la kala sheegay wali ma aragtay nin beertiisa yiraahdo gobka ana la geedka gobka dooxida dhinaceeda lama sheegin wali ma aragtay nin galool intuu isu keenay yiraahdo intaas oo galool ana leh waa wixii uu Ilaahay u siiyay hibada ee aan la beerin ee dhulka loogu yimi ee la cuno cid sheegatana ma leh xeerkaas ugu horeeyay wax sheega lama kala laha hoobta geedka aad minka guranaysaa ana dhinaca kale ka guranaya ana hoobta la cidiyo oran mayso weyn hoob arah baa la doonanaya de waa la midho doonanaya dibadna waa la soo guranaya lama kala laha Soomaalidu reer guuraaba hidoo la kala tagi jiray ilaa imikana lama kala sheegto ilaa imikana lama kala sheegto warbal tarbiyada laynugu soo dhaqay eeg waxaan ka hadlayaa waa aniga iyo inta iga yare waaweyn waxoogaa iyo dhammaan inta iga yar baan leeyahay warbal hadda akhlaaqaadka laynooga tagay ilaa cuntadii nature-ka ahayd ee aan cidi inala wadaagayna ilaahiyaanka ahayd baa xeerkiisii la yidhi yaan la kala sheegan oo aanay Soomaali imika kala sheegan geedkaa maydhaxdaa bay gabadhina halkaa ka soo gelaysaa galoolkaa gabadhina halkan oo maydhaxdaas la kala diiranaya iga tagiyo socon mayso ilaahay baa ku banaystay meesha waa loogu yimi dhirta ku dayashadeenina waxay noqotay waynu soo wadnaa intaa haddaynu maanta kaa kaga tagno garahii baynu gartaynu gelaynaa waxyaabaha garta ku saabsan cajaa'ibka laba garood baan imika keenay bal haddaynu eegi doono waxaa cajaa'ibku yahay marka xoolaha la kala garnaqsanayo oday Soomaaliyeed oo madax dhaqameed reer Hargeysa Yuusuf Xasan la yiraahdo oo aad ragga xigmad ehel xigmaha u saaxiibka ah wax la weydiiyay ayaan ka soo qaaday eraygan ayaa maanta anagoo intaan barnaamijka ima baaba ii sheego masaan ku barnaamijkayga bay khusaysaaba waan soo qaaday waan ku dhigay nin ari wata xoolihiisii wata ayaa damiir ku soo durduuriyo oo ka jiiray burkiisu uu ku sakaariyo tursigu markaad burka ku turto sidoo wareegay sakaarka kaga dhufatay sakaartu waa ninkii garanayo baa garanaya deedna labada lugood buu ku dhexgalayaa hawadaad ka imanaysaa deedna show sidoo ugu soo tuureeyo afka gafuurkaas ku dhuftayo ilkihiisa uu ka daadi waa dameerkii uu ninkii dameerka lahaaba uu yimo iga garbax buu yiri nin caduur la yiraahdo malaa waa maqashan caduur dhowlowdu ma dhacsan ninka la oran jiray baa gartii loo keeno uu ku margaday muxuu ku xaqaabo garan waayay de dameerkan ilku ka daatay ilaa qiso hore u dhacday maaha wax xoolo maaha bil aadankii wax ugu cajaa'ibsanaa dhaqankeenu sidoo xigmada u leeyahay ee haweenku maaha ragga haweenku xigmadaha ay keenaan toddoba habeenii toddoba maalmood buu caduursaa soo dhaba ku jiifo gartii laga sugaayo wax alla wuxuu ku qanaabo garan waayo wadaadiisuna dhowr habeen bay aragtay ee maxaa la warwareegaysaa masay tahay naga jiifso masuu naga tigmooyo habeenkii dambu yirina waxba ay haystee arrinkaas aad jiro masay tirimo waxaas la warwareegaysaa ma toddoba habeenii toddoba maalmood wuxuu ku xanuunaya gudin yaro xaqaf xataafaha si oo ninka markaasay tiri oo maxaa dhacay
dee soo ilkahan kuma cunaynin la orka hala dameerka hala rartay soo awrka waxba kuma cunaynin ha gudinta ayruun isna ugu jiro wixii cunayo dee afka magaraasay hadhow ku qaatay taasuu bu xaq u leeyahay sidii baa lagu garnaqo islaantaas ay gartii labadiina ku kala furatay dameerka ilkaha laga daadiyay dee mala qaar ma hore la dhantiiska u geeyay haloo soo xiray ilka mala caadiye laakiin gartii hore sidii ahaan jirtay iyo sida magaraasay nuxurkeedu uu ahaan jiray waxyaabahan waxaan doonayaa inaynu sidan u eegno nin weli waa la oran jiray ilaahay ha naxariisto dee raggii liidaradii Soomaali laga soo gaaray ayaa intuu raggii isugu yeeray nin yaro kibraan yaro waxa dilaaya liidar bimacna kalma liidar aha markaasuu yidhi waa raggii intuu isu yeeray maanta waxa ay keentaan cadka rag walaaleeya nin waliba gurigiisu ku noqdo iyadoo la wararsan yahayba inaan yareynta u timi aabaheed ku tir aabo soo cadka rag walaaleeya laguma oran intaad neef qasho keen ha hunguriga inta soo saartay bay tiri ugeey waa kaas naga tag weeri qoomay yahay anaga doonaysa inuu dulo waran ugu dhufto odaygu gariiriyay bay tiri aabo ha haduu ku dilaana waan istilay qaad nin waliba cad buu soo qaaday nin awlal soo qaaday nin jiheen soo qaaday nin dabar soo qaaday nin waliba wax buu soo qaado sidaas uu cadad ku eego markaas uu aadam maxaa sidaa odayguna oday karaamo labo ha markaas uu kanaan sidaa markaas uu odaygii siriday waran baa ku xigo masuu yana kana waa sidaana waanu yara gabanaya inta saawayga buu rimaadkeeni fikradda ayaa kale mas'uul tu baasoon dhalay baa igu tiri mas'uul inantii ugu yarshidii buu wiil bal ku guursaday inantii ehel xikma ragna hunguriyun baa walaaleeya waxa imika wadanku u baaba'aya manin nasteexa wada ama wadan dhisikii doonaya jiray halkaas loo wada go'ay inan rag wax walaaleeya nabadi ma walaalayso wax kale ma walaal inan rag halkaas baa walaalaysa qaybtaas baa wada shaqaysa mar haday qaybtani shaqaysa intan maxaa ka sareeya eeg afka wixii galay halka wixii ka hooseeya waa tarankii iyo magaranaysa ay xumihii intani waa intii wax laga arkayay ee laga maqlayay ee laga fikirayay ninku hadduu intani shaqay weyday intani shaqayso way dhamaatay hungurigu wuxuu buu keenaa inuu dhawto waa diliya dhacay boob way aqliga ku shaqayn maayo hungurigii baa ku shaqaynaya qaybta caloosha umba inaan rag halkaas baa walaalaysa dadaafa la doonaya marka la garta qsanayo markaas nin baa wuxuu kooranayaa anigu marka garnaqsanayo de garta wadaab wuxuu doonayaa inuu garta inuu doonayo in lagu la garnaqsado nimanku deeqa Soomaaliya hadal badan yahay aqoon badan markaas wuxuu doonayaa ninkaas ma soonay aniga saddex garta iima galaan wala hadoo fiirso saddex garta iima galaan alla ma yaqaan aniga ma yaqaan aw maxamed yaqaan garta iima galaan buu oranaya وانتي لا لوش كقادنيسه ده هبل كقادنيسه isagana aqoon ilaahayna ka baqaynay ninkanu ka baqaysay iima galaan garta buud barsado dhigay aniga iima yaqaan ninku noo wanaagsan boo alla ma yaqaan aw maxamuud yaqaan garta iima galo waa intii isaga la loosh ka qaata saddexna marxaati iima galaan naas jiid nafacjiid yilugjiid midna iima galaan naasjiidku waa inaan kala dhalay abtiga ugu yahay lugjiidkuna waa ninka xiidka la hayna layaalka la degan odayga ya nafacjiidkuna waa ka ku soo koray reerka la degan cuntadiisa iyo maficiisa curay saddexdaasina garta ima galaan saddex buu waxa uu doonayaa saddexdii uu doonayay baa deexaday intii uu diidanaa uu ka dadaafay mana keeni kartid gartii waa jilib carrada jilibtu halka istaagaya inta markuu ku garnaqsado ninka mudiciga ah doodaya ayuu oranayaa wax alla wixii markuu soo tiriyaabo oranayaa wax alla wixii iga harayna waa in lu kaabto ma lu kaabto way ku cusub tahay lu kaabto markaasuu ka kalena intuu soo tiriyo iska soo dadaafayaba oranayaa wixii iga harayna qurdiyo rugtayda ka fadhiya waa terminology garta imika ninkii garanayo baa garanaya lu kaabto wuxuu leeyahay waxa wixii iga dhiman dhaar baan ku kaabaya weeyaan كان هدو دوري إنه دارتي سادة دافيون من تلا داريه وسكت تجوه وشبوه حرنا يا واحد الله وحي قصوا حرينا قرد يروح تيدا كفرديا وأنا داربان كفرديا هذا وإريادا جراه terminology lagu soconayo inta ganacsato tirada wixii iga harayna waa in lukabto waxa ma dhireebin intana waa sheegtay inta kalena waan dhaaranaya baad in alla inta kalena waan ka dhaaranaya intana waa in lukabto kan kalena wuxuu doonayaa dhaartan uu ku degdegayo markaas uu isna dhaartu markaas gudidu markay dhaar timaado markii ma tirada hebel oo dhaare waxay la fiqi jireen ninka dhaaranaya iyo ka dhaarinaya
waxay hawaala waran geli jireen garaha kale ma leh dhaarta iyo dhibaatadeeda loo sheegaya hebel bay soo martay reerka cidi kama hadhin hebel bay soo martay meesha lagalama kicin dhaartana lagalama kaco waa dee waa mucjiso haddaan dhaar oo dhan markaasay haddana ku noqonayaan hebel oo ninka ha dhaarin sida kale markuu kaniisu soo taagaabaa kii kale wax dhaarinaya laleeyahay ha dhaarinin yacni inta dhaar lagu ordaayo waa xeer beegtidii dee xeer beegtidii ahaan jirtay kana intaan laisma soo gaarin buu telefishinka soo taagaya waxa wallaahaya oo subxaanaka yaa cadiim subxaanaka yaa cadiim subxaanaka yaa cadiim dhaarta raggaa wax kala galay ee midida uu run ku dhaaranaya midna been ku dhaaranaya ilaa arrin laba nin run uguma wada dhaaran karaane ayaa la sahlayo ninna isagoon dhaariba haynin oo dhibaata haynin oo xildoon yahay oo duuli raac yahay buu kitaabkii waxa wallah miidaan arag marka madaxweynayaasha iyo wasiiradii iyo baarlamaanka la dhaarinayo subxaanaka yaa cadiim iyo waxa imika sameynayaan markaad eegto subxaanaka yaa cadiim inaadeer yaa daar waa kursi iyo manfacdoon waar xilka waar weyn bulshadii xitaa lafteedii inay tala keento tirahdo waar weynu aragnaayo kulle haddaba yaynan aakhiradooda sii xumaynayna aynu dhaarta ka dayno sidaasun ha lagu doorto ilaa kulle miyaa la xujayni waa adiga arkay oo wax wada geesi riyaal labay wada noqdeen nimankii dhaaranayo de inaad dhaarto qofka bini'aadanka moogta ilaahay subxaanaka yaa cadiim allahuma najayna waxa aynu u gelaynaa khadka telefoonada ayaynu bal hadda imika haddii la yidhaahdo u geli doonaa injineerkana waxaan leenahay khadka telefoonada inaad noo furto insha allahu tacaala khadka telefoonka ayaynu geli doonaa bal wixii waadna soo wici kartaan intaynaan heestii wiiga u gelin aynu maanta gartii iyo baynu intaa kaga tegaynaa iyo bal dhaqankeeni iyo Soomaalideeni iyo midhaheeni iyo organigeeni iyo daraygeeni iyo freshkeeni waxyaabihii la cuni jiray oo dhan marka bal waxaynu geli doonaa horta bal telefoonada ayaynu gelaynaa dabeedna heestii anshaxa ayaynu gelaynaa waa furan yihiin telefoonadu waana na soo wici kartaan insha allahu tacaala iyadoo aynu doonayno bal hadda wiigan heesta aynu soo qaadan doono ay noqon doonto hees xagga telefoonada kolley weli injineerkii baa inoo wada waana inoo socon doontaa kolley marka injineerku uu inoo fasaxo ayuun baynu maarata idiin soo gudbi doonaa bal aynu galno markay telefoonadu inoo furmaan waynu geli doonaa bal aynu eegno kliibkan bal ila yara daawada waa heesta anshaxa bal dhaqankeeni halka uu marayo waxyaabaha bal hadda fawaaxishka ah ee foolxumada ah ee dhaqankeenii ku soo kordhay iyo waxa caruurteenii aynu dhalnay ay daawanayso bal kliibkan ila eega ma gaalba ma muslimba ma soomaaliba ma talyaaniba ma turkiba ma argentinba warbalniyow sida aynu nahayaa lagu dayanayaa يعني waxa noocaas weeye waxa aan ka digayaa subxaanaka yaa cadiim war bal eegade oo ila eega horta dhaqankii Soomaaliyeed quruxda badnaa halka uu marayo waa heesta imika aynu doonayno maanta inaynu galno bal waxa ila eegtaan kliibada la duubayo ee hablaheeni raggii dhalay meeyo kuway la dhasheen meeyo kuway la walaalahaayeen meeyo kuwii dawladaha meeyo war bal subxaanaka yaa cadiim bal waxa u fiirsataan waxa YouTube-ka ku jira bal telefoonada ayaynu gelaynaa aynu doonaynaa haddaynu gallo hallo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد القادر magacaagii halkaad ka soo hadlayso walaal marka ugu horeysa walaal waxaan joogaa dalka Norweed baan ku salaamay Cabdi Goodo magacaygu waa Axmed Cabdilaahi Axmed walaal ma la socotay barnaamijka aad iyo aad wasaan la socdo waxaan sii fadhiistay markay barkadina 30 daqiiqo markay sii dhinayeen baan ayaa barkinta sii adkaystay Axmedow kliibkan imika aan soo saarnay haddaanu nahay Kalsan TV ma aragtay heesta si fiican maxaad u arkaysaa intaan anigu ka hadal bal waxno bal inaad nagala qayb ka qaato oo waa noocma walaal waa wali-cas waa daariya shamis bal u fiirsada bal inankaayo inantaasi horta dhaqan islaam ma ka muuqda dhaqan Soomaaliyeed ma ka muuqda anshax ma ka muuqda itaalka waliba waynu heegi doonaa heesta inantu heesi mayso inantu xitaa dee ma heesayso codka sare igu qaad waxa weeye waa arrin aan fulinay ma marka arrintaas waa shaqadaadi weey waa arrinta waa inaad ka hadasho weeyaa taataaba de waxa miyaa waxyaabaha imika war qofka had iyo jeer agayliska igahay ma tan uu fasaxaya marka Axmedow
warniyo dadka ageerisa ka wadadaan ogoleen qof soo shacbaxo horumar sameeyo oo maartay wax qabta dadkaas ma ogola waa tadalkeeni horumarkii Soomaali ragaadisay marka waxa weeye aad soo baxay baa tahay waxa weeye shaqaa waliba cidna u diran shaqadii dawladdu qaban lahayd baa saadu Cabdigood in aadar waan kugu hambalyeynaa kun jeer baan kugu hambalyeynaa dhaqankii baan noolaysay anshaxii baad ilaalinaysaa waxa weeye waa nidaamkii wasaaradaha dhaqanka iyo hiduhu ay sameyn lahaayeen baad adu wadaa hadda adu Cabdigood aan waxa dawlad Soomaaliya dhan taagan shanta Soomaaliyeed oo dhan bad matishaa aad baan walaal Axmed kugu bogaadinaya kugu hambalyeynaya Allah yicisig ku dar la balwiyada hore mar waxaad yara gashay xagga salaadiinta koobiga imika Soomaalida waxa ku soo farabatay salaadiinta maartay la soo koobiyo waynu soo wadnaa hordhac bay hayda waa soo wadnaa hadduu waa la yidhaha balaasha xasuudaanka iyo wixii qawaanintii salaadiinta iyo balka sheekada imika waxa laga saamid mooriyaan haayo afmishaar lagu leeyahay waa suldaan hebelo salaadiinnimada qudheeda u baahan moogtiin aan yara galna moogta qudheeda ka degdegi mayna waa soo wadnaa ka degdegi mayna waynu soo wadnaa Axmed oo hadaa la yiraahdo marka khadka labaad ayaynu galeynaa telefoonka labaad balu fiirsada clipkan ila eega dadka daawanayo dadka telefoonada soo dirayo ilaahi idin abuurtay baan idin ku dhaarshay heestaas yaani ereyadeedii waynu galeynaa bal clipkan eega bal dhaqankan eega bal akhlaaqdan eega maxay uga jeedaan markaa meenan ummad xumaha iska qabato wanaagana isfarta ahayn يعني ده سيداني وادقن كانوا قادني والنوع بل واكنا إلى إيجا هرتا بل إلى إيجا إلهي بان يكون دارشي معناه وانا مساعدا بلقيه سيماني هو بارد ظاهر يا شمس ميانا يهين يدي الله محمدين ميان كن راحيستا ميان كن حام أخلاق حما ده وحي إنك اللي مركينا لدقيسن واي إنا نكليبا دي كينو مربا هدا يوتيوب كوتشران ولا داوانا يو بل إنا ندكن الهروان محانا لغو حيستا ما أنت وحي كدن بيه كليبا إيمانا يا كليبو قف وليبا وحي وقلب صدي سبحانك يا عديم waxaad moodaa malaa dhinac qaarkood ma annagaa sii fidinayna talow dee mooyi dee bal wuxun baanu isleenahay uun war bal dhinacan dee ha la qabto bal inaad yar eega ilaahay baan ku dhaarshay dhalinyaradeennii bal u fiirsada bal dhalinyaradeennii yacni war waalidkii mee wadaadadii mee dadkii wax qaban jiray mee waa hoo baaruudi waa waalidii oo cas oo lugaynaysa ayaa iswiin bul gashay oo inoo heestay dee imika innaga والدي أوعس أيها اسمه بالخطة بعرته هاستي أو إن أنت نيمك مهيسيسو إن أنت المهيست اللي جو يبنيه عورضا إن قرصدا أي تاي إن أنا شرفه إن أنت نيا هيد بهيدو حبله هيجي جيان كيجي مرحم كيجي إن الملك أسر طابع هيد دي يا يعني بل ولا يا الإيجا سبحانك يا عديم دي نادر إلهي بعيب كنا سهن يعني وهو بارودي ظاهر يا شمس ما يترين ظاهر يا شمس صار إن إما كي ظاهر يا شمس تي تاي قالوا في رصاد نيكن اسنا لبحي ما يرنيا الاسلحين لفتقي سواد قاوتي له قاوي هي سبيس موقع يا اوغل هذا انو تلقي سير خدينا اسنا ابي هو يدلل دلو سقطو لغينيسا halka keenisna بل هيستنا أينو قالوا هيست لفتي حدبا هيست يا وحي أورانا يسوي أخلاقات كذي هيستا بل ينا أينو قالوا أنا يابي دي يابي هاتشو مان كي قد ما مساري بقي دبيوري عبد قود سكال لي مين هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم هلو السلام ورحمة والله المقعد هلك كسو الله يسو ومختار عمر هذا لو كان صار لي مجال هرقيسة والمختار بالوطن خير مختار عندي عبد الجود برنامج كان يعاون ونسألك اللي ساحة تيجي وقت التعطيل بوقت فالك يا حاج ما سو إن هذا يردي بل كورهم بل أدوكنا وحكد ما أنت أنا نسكا موسى بل يدوك وحدها ما أنت وحن غورنا هنا ها نمشي وانان بيت تركي باو ميل قوا ها نمشي وانان تركي باو ميل قوا ها هذا والدي كشيء حقي فنكا ها الوالد معنا بلون بين
أنا يمكن بحكتو waxaa ku xigta in muryo gacan ها ده اللي يمكن هو اسكمل يجعنك واحد كعكتو سماها ظهر يا شمس wallahi wax la eegin kara ma waxyaabahaasna waa waxyaabaha Soomaali sagaadiyay يعني ما عرور بكوري كتا وضن كي جوديه سويا وحني وردبت بما هذا قربه معها وأفريقيا وحني وأفريقيا لكن وحين الأرقام على صوماليا ها مركز يعني والدي يعسي بلو فيرسو بلني كاودي جايك dadka waxa uu macallina ها macallin كالا سو غاي ميسا كا سو غاي حدا ديغتا دحديدي وا 9 غدون iyo xeerna guur xalaalan kula galay inta guudka filatiyo gabadh xeerkii gaalada weeye guddoon iyo xeerna guur xalaalan kula galay guurka xalaashay waa ka wadaahir ya shamise waa daahir ya shamise guurka xalaal u sheegaya waa kee goor kastaan ku eegaba quruxdaadan gaarka ah gobonimo u dhalatay gobonimadee bay u dhalatay Saudiga ka dilay ee ka qaaday gobonimadii gabadhu u dhalatay Saudiga ka xayuubiyay daahir ya shamis ka dhigay qalbigayga gilgisha ku gilgilay qalbigu ka sidaa wax u galayo annagaaba kullee ha ku gilgisho ويلكذا قد عريا عدنا اللي قد دمسي قد كاغا توغا قو حيغا قرؤو قو حما قاربا سبحانك يا عظيم ما قبلنا سوليه مركا قدونك يا حيرك